kulan wacan wanaagsan daawade halkan waa TV-ga gobolka Banaadir ee Banaadir TV waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa qayb ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ubax dhigay taalada dhagax tuur ee Muqdisho iyadoo lagu weyneynayo xuska 26 Juun warbixin ku aadan maxay 26 Juun uga dhigan tahay ummadda Soomaaliyeedna warkeena ayaad ku dhex daawan doontaan aqalka dawladda hoose ee Xamar waxa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo 26 Juun oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa ee dalka uuna ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya taliyihii hore ee guutada 23aad gaashaanle sare Aadan Jeelle ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyay taliyaha cusub ee loo magacaabay hoggaanka guutada 23aad ee ciidanka boolis militariga wararka dibadda wararkeena aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa qayb ka ah hogaamiyaha Xisbullah oo Israa'iil markaasi ugu baaqay inay Lubnaan uu ka baxo qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaanu daawada ka soo qaadan doonaa warkeena goor dhow diyaar garow warkaas oo faahfaahsan وهاجك داود أنت صحيح هاين قضبضي ورك وقدر كورونا هاتن وحد كسر دواتان وركاس وفتصن ويدين أخريه أنا جوا عبد القادر محمد معلن كالجعل مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيا ساكن نجح دقي طلع نجح تور مقالة عاصمة مقدشو يدو لجو وينينيو حسك اللي حيل باتن كجون madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saaka u baxdhigay taalada dhagax tuur ee magaalada Muqdisho munaasabad qayb ka ahayd xuska toddobaadka xurriyadda iyo maamuuska halyeeyadii Soomaaliyeed ee u soo halgamay gobonimada dalka madaxweynaha ayaa sheegay in toddobaadka xurriyadda uu yahay astaan qaran oo dib loogu xusuusanayo halgankii dheeraa ee shacabka Soomaaliyeed ay u soo mareen xurriyadda isla markaana lagu xoojinayo midnimada wadaniyadda iyo ilaalinta taariikhiga dalka munaasabadan madaxweynaha waxa ku wehelinaya gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab iyo ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diire Yabo iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Asad Cismaan Cabdilaahi maalinta 26 Juun ayaa ah maalin qaran oo xambaarsan qiimo taariikhi ah iyadoona la xusuusanayo markii gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee sanadkii 1960kii ay ku xoroobeen guumeystihii markaasi Ingiriiska taasi oo bilow ah wadadii markaasi lagu gaaray midnimada iyo madax banaanida Soomaaliya maxay 26 Juun uga dhigan tahay ummadda Soomaaliyeed warbixin kooban 26 Juun waa maalin si gaar ah ugu weyn qalbiga shacabka Soomaaliyeed waana maalin ku suntan sharaf geesinimo iyo guul qaran waa maalintii ugu horeysay ee qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ay si rasmi ah uga baxdo gacanta guumeysiga kadib halgan dheer oo ay shacabka Soomaaliyeed u soo mareen raadinta xurriyadda iyo dawladnimo iyagoo ay leeyihiin 26 Juun 1960kii gobolada waqooyi ee Soomaaliya waxay si rasmi ah uga xoroobeen guumeysiga Ingiriiska waxaana maalintaasi ay noqotay bilowgii riyadii qaran ee Soomaaliyeed xurriyaddaasi ma ahayn oo kaliya in calan cusub la taago balse waxay ahayd guushii shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer ay ku taamayeen madax banaani iyo inay ka tashadaan mustaqbalkooda maanta marka la xusayo sanad guurada xurriyadda waxaa muhiim ah in dib loo milicsado taariikhda maalintan qiimaha badan si jiilasha cusub ay u fahmaan qiimaha xurriyadda iyo dhibaatadii markaasi la soo maray Soomaaliya ka hor xurriyadda haddaynu fiirino ka hor sanadkii 1960kii Soomaaliya waxay ahayd dal kala qaybsan oo ay gacanta ay ku hayeen quwadihii reer Yurub waqooyi Soomaaliya waxaa maamuli jiray boqortooyadii Ingiriiska halka koonfurtana ay maamulayeen Talyaaniga inkastoo ay dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen hal diin hal dhaqan iyo hal hadaf haddana gumaysigu wuxuu kala qaybiyay dhulkooda kala qaybsanaantaasi waxay shacabka Soomaaliyeed ku abuurtay dareen xooggan oo ku wajahan midayn iyo xurriyad sanadihii 1940meeyadii iyo 1950meeyadii waxay si weyn u xoogsatay rabitaankii gobonimo doonka dhalinyaro waxgarad ah siyaasiyiin iyo culimo Soomaaliyeed ayaa bilaabay abaabul ay shacabka ugu diyaarinayeen xurriyad
halgankii gobonimo udoonka xurriyaddii 26 Juun ma aysan ku imanin si fudud balse waxay ahayd natiijo ka dhalatay dadaal dheer iyo halgan siyaasadeed oo ay hormuud u ahaayeen wadaniyiin markaasi Soomaaliyeed waxaa la sameeyay ururo siyaasadeed oo u taagnaa xurriyadda iyo qarannimada Soomaaliyeed waxgarad Soomaaliyeed ayaana bilaabay wada hadallo iyo ololayaal markaasi lagu cadaadinayo maamulka Ingiriiska si shacabka Soomaaliyeed loo siiyo madax bannaani dadka Soomaaliyeed waxay muujiyeen rabitaan midaysan oo ku wajahan xurriyadda iyadoo magaalooyinka waaweyn laga dareemayay kacdoon wadaniyadeed iyo baraarug markaasi siyaasadeed habeenkii 26 Juun 1960 wuxuu ahaa habeen aan weligiisa ka bixin xusuusta shacabka Soomaaliyeed magaalada Hargeysa iyo guud ahaan gobolada waqooyi waxaa laga dareemay damaashaad weyn iyo farxad aan markaas la qiyaasi karin markii ay saacadu gaartay xilligii xurriyadda lagu dhawaaqay waxaa si rasmi ah hoos markaasi loogu dhigay calankii gumaysiga Ingiriiska halka markii ugu horeysay la taagay calan buluuga ee Soomaaliya oo xidigta cad leh shacabka Soomaaliyeed waxay wadooyinka isugu soo baxeen iyagoo muujinaya dareen wadaniyadeed farxad iyo didiilo markaasi cusub heese wadani ah gabayo iyo weerar markaasi xurriyadeed ayaa hawada qabsaday جسدت سبان على كانوا سوقيني إنسان كيساهينو زرم ويلو هلا عليو زقل من تدروريو سيقدين قاميريو dad badan ayaa u ilmeeyay farxadda darteeda maadaama maalintaasi ay ahayd guushii ugu weyneed ee shacabka Soomaaliyeed ay gaaraan xilligaasi macnaha xurriyadda 26 Juun haddaynu fiirino 26 Juun waxay ahayd wax ka badan maalintii gobol xor noqday waxayna ahayd bilowgii hay'adda qaran ee Soomaaliyeed oo midaysan waxaatiin xor dawlad oo adinka gacantiina ku jirta leedihiin shacabka Soomaaliyeed waxay rumaysnaayeen in xurriyadda waqooyi ay noqon doontay albaabka midaynta dhammaan markaasi dhulalka Soomaaliyeed taas oo ugu dambeyn u horseeday midowga 1 Luulyo 1960 maalintan waxay astaan u tahay geesinimada shacabka Soomaaliyeed midnimada wadajirka iyo guusha halgankii gobonimo udoonka bilowgii dawladda Soomaaliyeed oo xor ah sidee loo xusaa 26 Juun sanad kasta gudaha iyo dibadda Soomaaliya waxaa si weyn looga xusaa 26 Juun waxaana la qabtaa xaflada qaran koru qaadista calanka Soomaaliyeed heese wadani ah iyo sidoo kale tan bandhigyo suugaaneed barnaamijyo ka hadlaya taariikhda xurriyadda xus markaasi lagu maamuusayo halyeeyadii gobonimo udoonka shacabka Soomaaliyeed waxay maalintan u arkaan maalin sharaf leh oo lagu xoojinayo jacaylka dalka iyo qarannimada 26 Juun waxay jiilasha Soomaaliyeed ay baraysaa in xurriyaddu aysan si sahal ah ku imanin balse ay ku timaaday nafhurnimo dulqaad iyo halgan midaysan waxa sidoo kaleeto in xusuusinaysaa muhiimadda midnimada ilaalinta dawladnimada iyo in la qadariyo in jiilka cusub markaasi lagu barbaariyo wadaniyad Soomaaliyeed gabagabada haddaynu fiirino 26 Juun waa maalin qaran oo astaan u ah guul sharaf iyo himilo Soomaaliyeed waana maalintii ugu horeysay ee shacabka Soomaaliyeed ay dhadhamiyeen xurriyad rasmi ah taas oo albaabka markaas u furtay dhalashadii jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo la xusayo sanad guurada xurriyadda waxaa muhiim ah
in shacabka soomaaliyeed ay dib u milixsadaan halgankii awoowayaashooda islamarkaana ay sii xoojiyaan midnimada nabadda iyo qarannimada si loo ilaaliyo himilada geesiyaashii soomaaliyeed ay u dagaalameen aqalka dowladda hoose xamarna waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo 26 Juun iyadoo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hogaamiyay munaasabad qaran oo lagu xusayay 26 guuradii ka soo wareegatay xurriyaddii gobolada waqooyi ee 26 Juun 1960 taas oo lagu qabtay aqalka dowladda hoose ee xamar munaasabadan ayaa si heer sare loo soo agaasimay ayaana lagu muujiyay qiimaha xurriyadda midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo halgankii dheeraa ee la soo maray gobonimo doonka dalka waxaana ka qayb galay madax sareeto oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kaleeto ugu horreyn gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa ka sheegayay halgankii dheeraa ee la soo hooyay xurriyadda dalka isagoona xusay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo taariikhda iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed sidaa iyadoo tahay ayaynu ku dhaqaaqnay gobonimo doon 1954 ayaa calankan nin Soomaaliya oo Maxamed Cawaale la oran jiray uu taaliifay uu sameeyay wuxuu ka kooban yahay shantoo isweheshatayay wacnayda calan inay wadaagaan ay wanaagsanaydo shantii ma midoobin oo calankaas astaanta waa dee kumay midoobin dhanka kaleeta wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in 26 Juun uu yahay habeen taariikhi ah oo gobolada waqooyi qaateen xurriyadda isla markaana markii ugu horeysay markaasi la taagay calanka Soomaaliyeed habeenkan caawa waa habeen 66 sano ka hor ay rumowday halgankii dheeraa oo 70 sano loo soo halgamayay natiijadiisa habeenkii la helay weeye halku dhigiisuna waqtiga xurriyadda uu ahaa axyaa wadan iyo Soomaali ahayd dhankiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa isagana sheegay in halgamayaashii u soo halgamay xurriyadda ay mudan yihiin duco iyo abaalmarin joogta 26 Juun waxay ka dhigan tahay xuska halgan nafurnimo oo ay dadka Soomaaliyeed sanado badan ugu soo jireen sidii ay u hanan lahaayeen xornimo midnimo iyo dowladnimo Soomaaliyeed duco joogto ah iyo ammaan aan duugoobayn ayay naga mudan yihiin halgamayaashii xornimo doonka ahaa ee horseedku u ahaa qarannimada aan maanta herkeeda horsanayno haddii aan nahay jiilalka maanta nool waayeel iyo dhallinyaro rag iyo dumarna waxaa nala gudboon inaan halgamayaashaasi uga dayanno daljaceyl nafurnimo iyo daacadnimo dhanka kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo xafladda ka hadlay Saale Axmed Jaamac ayaa tilmaamay in 26 Juun ay tahay maalin saldhig u ah midnimada iyo gobonimo doonka Soomaaliya sharaf weyn bay markaa annaga noo tahay in aanu wixii ay awoowayaasheen u halgameen maanta halkan ku matalayno ku raagi mayno taariikhda ay maalintani leedahay tix iyo tiraabba waa lagu sheegay ama timcaddi ha qeexo ama cali sugulle ha qeexo ama raggii maalintaa joogay si xeel dheer oo xigmadaysan ha ku qiyaasaan waa markay lahaayeen aan maalno hasheenna maandeeq ama markii la lahaa Soomaaliya toosoo isku tiirsanayay hadba kiina taag daranay taageeray weligiina ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi khudbad ka jeediyay madasha xalfadda ayaa sheegay ama adkeeyay muhiimadda ilaalinta midnimada Soomaaliya xoojinta hay'adaha dawladda iyo sidoo kale dardargelinta horumarka dalka waxaana sidoo kale ugu baaqay walaalaha gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya inay ka faa'iideystaan fursadaha nabadda isla markaana dib u soo laabtaan wada hadalka si loo xoojiyo
wadajirka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. ilaahay marka walaalayaal maanta qarniga 21aad oo dunidii isdoonanayso oo dalali isdoonanayaan oo markay ugu yaraadaan siyaasadda iyo dawladnimada waa halkeeda bal dhaqaalaha aan isku darsanno oo suuqa aan isku furanno oo aan nolol fiican kor u qaadno ay ku wada haminayaan kala joogis annaga marna dow nooma aha waxaan rabaa walaalayaal waxa aad tirsanaysaan ama aad tabanaysaan horena waa uga garawnay haddana inaan ka garawnaan rabna ka daali mayna ka caajisi mayna dadkaasi wixii ay tabteen si allaale iyo sidii ay uga calool fayoobaa karaan inaan yeelno ma ka daalayno mana ka caajisayno xaggooda waxaan rajaynaynaa inaan garaawshiyo ka helno maanta waxay nagaa taagan tahay alaysa minkum rajulun rashiid war kuwii shalay inta xorriyadda doonay xor noqday ayadoo afartii kale ee Soomaaliyeed weli aanay xor noqonin yiri xorriyadda aan helna keligeen waxba nooma tartee Soomaali aan doonan. munaasabadan ayaa lagu soo gabagabeeyay calan saarka qaranka oo markaasi dhacay saqdi dhexeeto ee xalay iyadoona loo duceeyay halgamayaashii naftooda u horay xorriyadda iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. taliyihii hore ee guutada 23aad ee ciidanka boolis militariga gaashaanle aadan jeelle ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyay taliyaha cusub ee markaasi la magacaabay ee hoggaanka guutada. munaasabada xil wareejinta ayaa gaashaanle sare aadan jeelle cali ku sheegay in uu kalsooni buuxda markaasi ku qabo taliyaha cusub isagoona xusay in amniga caasimadda uu gaarsiin doono heer ka wanaagsan kan uu maanta uu joogo. waxaan ka codsanayaa guud ahaan meel kastoo aad joogtaan military police 23aad ayaa cusub in la shaqeeyo si laa furan karti leh kalsooni leh firfircooni oo la shaqeysaan. ugu dambeyn waxaan alla uga baryaa Cabdullaahi Ilaahay kaga baryaa inuu mas'uuliyadda Ilaahay ku asturo. waxaan leeyahay soo dhaweynayaa taliyaha cusub ee guutada 23aad oo soo magacaabay ee maanta xilka la wareegayo waana soo dhaweynayaa waana u duceynayaa Ilaahayna uga baryaa inuu ku asturo mas'uuliyadda culus loo dhiibay una fududeeyo. waxaan ku qabaa kalsooni buuxda maanta meesha ay joogto meel ka fiican oo gaarsiin doona guutada hogaamin wanaagsan iyo yacni karti daacadnimo iyo howlkarnimo insha Allah aan la imaadooyo yacni mas'uuliyadda u tahay halkan. waxaan leeyahay walaalkay Cabdullaahi Ilaahay ku fududeeyo waa kugu duceynaynaa oo garab istaagaynaa wax alla waxaad nooga baahatana waad nagelaysaa xilli alla xilliga u baahato. guutada 23aad runtii waxay howlgal bilowday 2023 yani maarso iyo abriil yani bilowgeedii runtii waxa ka jiray caasimadan iyo xaaladaha ka jiray wax hadda u baahan in laga sheekeeyo ma aha dadka caasimadda ku nool iyo guud ahaan Soomaaliya waxa la yiraahdaa ayaa markaati ka ah laakiin waxyaabihii yani sideedahay ugu adkaan ka soo shaqeynay waxay ahaaday qatari maalinta qatari xilliga taagneed oo ay kamid yihiin waxa la yiraahdaa argixisada iyo weerarada sidaad ka arkayseen documentary ama videoga yani burcad hubaysan ee xadka aan lahayn iyo hubka sharci darrada laftiisa qulqul ahaa. waxaan ka warqabnaa magaalada Muqdisho meel kamid ah degmooyinka qaarkood in la awoodi waayay in salaada lagu dukado masaajidka iyadoo bil Ramadaan waliba ay dadka caasimadda ku nool qayb kamid ah degmooyinka ay lahaayeen masaajidan aan geli weynay waxa ayana aan waxa la yiraahdo aan wax la dhayalsan karaan baan loob karin ahaa maandooriha aadka u qulqulka badnaa ee caasimadda ku soo qulqulayay oo isleeyahay waxyaabaha la dagaalamo waxyaabaha badan oo kamid ahaa. marka waxaan rabaa inaan warkii ku soo gabagabay ugu dambeyn muddadii aan ka shaqeynay amniga caasimadda runtii waxaan jiray wada shaqeyn aad u wanaagsan oo ah bulshada iyo ciidanka isdhexgal wanaagsan isla xisaabtanka yani ciidanka kor u qaadista yani intaan ka shaqeynay halkaas garaadka ciidanka tababarka iyo diyaargarowga ciidanka midnimada iyo wada shaqeynta oo intaba tiirka koowaad ah waxa la yiraahdaa guusha hogaamineed يعني واحد أيام واد وقت وسوق لي كنتي إذا كان وحيل في نظر وحيين وحيل إلى أمن عاصمة إيه الموارد على إمام تكبع أي جارت نقالهان إيه اسمعان إيه موقعلهان إيه أمنيان أي وحيل إلى هو يعني الجار هنا سلاحي
labadan guuto military police 23 haddana caasimadda ku howlgeli lahayn haddaba sidaas awgeed waxaan leeyahay warkay kusoo gabagabaya hadalkayga saraakiisha guuto 23aad saraakiil xigeenta alifleyda dibleyda guutada inaad si kal furan kalsooni leh daacadnimo leh ay ku dheehan tahay dhaartii iyo mas-uuliyaddii loo dhaartay inaad uga shaqaysaan taliyaha cusub oo maanta xilkii loo wareegaya waa waajib muqadis ah in la kala wareego anigana waxaa laga yaabaa inay naseexa i tahay asigana waxaa laga yaabaa inay u tahay inkastoo dee mas-uuliyad markasta uu iska dhibaan tahay u tahay waxaa la yidhaaho naseexa u tahay idinkana in laftiina isbeddel idin yimaado weji cusub aragtaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay idin tahay waxyaaba badan oo faa'iida waxaan leeyahay waxaan idinka codsanayaa guud ahaan meel kastoo aad joogtaan military police 23aad taliyaha cusub in lala shaqeeyo si laa furan karti leh kalsooni leh firfircooni aad ula shaqaysaan ugu dambeyn waxaan alla uga baryaa cabdullahi ilahi kaga baryaa inuu mas-uuliyadda ilahi ku asturo kugu guuleeyo runtii ayuu la yidhaaho runtii waa laga filayo la yidhaaho waxaa la yidhaha mas-uuliyaddaas ilaan kaga baryaa inuu kugu asturo kugu guuleeyo mas-uuliyaddaas aad aad mahadsantihiin warkaygana halkaas ku egyahay shacabka caasimadda ku nool iyo ciidanka intaan lasoo shaqeynaya waxaan rabaa anigu sayda waa qalbi xaaran qof wili quduma qaadine haddii wax kale jiraan bini aadan leeyahay waxba asi gaari kare in la iscafiyo guud ahaan meel kastoo aad joogtaan intaas baan ka codsanahay aad aad mahadsantihiin